محمد عبد الله محمد فرماجو. بسم الله الرحمن الرحيم. gudoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal taliyaasha ciidanka qalabka sida dhammaan ka qaybgalayaasha munaasabadan ururada bulshada culamaa udiinka صحافة بامبيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo taageerayaasha ciidanka qalabka sida iyo dadka ku bixiyay dhaqaalaha iyo qalabka anigoo ah taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida oo ku hadlaya magaca ciidanka waa idinka guddoomay waa idinkaga mahad celinaya taageerada aad taageersan tihiin ciidanka qalabka sida aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa. waxaan rabaa inaan waxyar idinkaga sheego ciidanka waxay yihiin. anigu ciidanka waxaan bartay 2010 iyo 2011 markii ay shabaabku haysteen xamar 75%. aniguna aan ahaa ra'iisul wasaaraha oo ay maalin walba nagu soo weerarayeen madaxtooyada oo ay ciidamada leynayeen yaan waxaan ogaaday ciidanka aan haysanno iyo ciidanka Soomaaliyeed geesinimadoodu waxay yihiin. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed oo halkan fadhida iyo kuwa daawanayaba inaan baro ciidanka Soomaaliyeed caawa waxay yihiin. waxaan ka bilaabayaa oo aan la shaqeeyay Generaal Bile oo halkan jooga. markaan leeyahay ciidanka qalabka sida waa isku wadaraya Generaal Saacid waxaan ka codsanayaa halkan inaad timaado oo markaas ahaa taliya ku-xigeenka. waxaan rabaa inaan u yeero Generaal Saney iyo kulli ciidamadii ila shaqeeyay oo magaalada wax ka xoreeyay halkaas soo istaag kulligiin. ciidankii magaaladan ka xoreeyay shabaab 6 sano ka hor waxaan rabaa halkan inaad soo istaagtaan oo ay dadku idin arkaan. maxaa yeelay magaalada aad arkaysaan hadda waxaa ku daatay dhiig badan, dad badan yaa naftooda u huray. waxaan doonayaa inaad ogaataan waxaad ku fadhidaan caawa inay tahay dhididka iyo dhiigga iyo maxaan ku idhaahdaa halgamayaasha halkan taagan. ciidamada halkan aad ka arkaysaan waxa weeye ciidan ku soo dagaalamay iyagoonan haysan mushahar, iyagoonan raashin haysan, iyagoo markay dhaawacmaan aan la daaweynaynin, iyagoo kii dhinta carruurtooda aan la daryeelin. xaggee ka helaysaa ciidan noocaas oo kale ah adduunka? xaggee ka helaysaa? annagu haddaan nahay bini aadan, khaasatan haddaan Soomaali nahay, ma xasuusanno shalay abaalna ma lihin. caawa jeneraaladan aad arkaysaan iyo korneelada aad arkaysaan iyo saraakiisha aad arkaysaan waa saraakiisha aad ku fadhidaan halkan caawa. maxaa yeelay xaaladda hadda aad arkaysaan xaalada adaga ka soo horreeyey oo aad iyo aad u dhib badan.
sidaas darteed waxaan leeyahay maanta oo ay bishu tahay 8 Julaayo 2017 waa maalin geli doonta taariikhda Soomaaliyeed baal dahab ka gelaysa maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa wadajirka shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeed wadajirka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed mas'uuliyadan ma laha dawladda kaligeed ma laha difaaca dalka ma laha ciidamada kaligeed ma laha qof walba muwaadin ah yaa iska leh difaaca qaranka qof walba Soomaaliyeed yaa laga rabaa inuu dhinto oo dhiigiisu daadiyo haddaad doonaysaan inaad ku noolaataan dal sharaf leh waxaan hubaa qof walba halkan fadhiya inuu doonayo inuu ku noolaado dal magac leh oo markuu uu safraayo baasaboorkiisa iyo isaga aan la dhibayn oo la xurmeenayo laguma gaari karo intaasoo sharaf ah aad arkaysaan laguma gaari karo ciidan la'aan dowlad walba iyo dal walba intay ciidankoodu yahay yay sharafkeedu tahay oo la ixtiraamaa oo ay magac leedahay sida hadda xaaladdu ay tahay waxaan leeyahay waxaan joognaa 2010 maxaa yeelay shabaabka magaaladan lagama bixin lahayn haddaysan shacabka taageerin shabaab waxaan uga adkaanay oo aan magaaladan uga horeynay taageeradiina waxaan uga horeynay taageeradiina aad siinaysaan ciidamada qalabka sida biyaha iyo caanaha iyo cuntada ka daba wadaan waxaan rabaa inaan halkan ku magacaabo ama aan ka sheego batuulo inay halkan noo timaado oo hogaaminaysay dumarka Soomaaliyeed oo daba socday waxaad raadinaysaan dalkiina inuu sharaf lahaado macnaheedu waxay tahay inaan isku tashanno waxa weeye inaan isku tashanno ciidanka AMISOM oo waalaheen ah oo halkan noogu yimid inayna difaacaan waxay nala joogaan muddo 10 sano ah waxaan idiin sheegayaa 10 sano dambe nalama joogayaan sidaas darteed waa u mahad celinaynaa waa ku mahadsan yihiin abaal weyn waa uga haynaa laakiin waxaa loo baahan yahay si sharafkeena iyo karaamadeenna ay u soo noqoto waa inaan awood u lahaano inaan dhulkeenna cirkeenna iyo baddeenna aan gacanta ku hayno aan difaaci karno waxaana difaaci kara ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa difaaci kara ciidanka qalabka sida difaaci kara laakiin ciidanku kaligiis ma difaaci kareen dal waxa lagu difaacaa laba arrimood waxa lagu difaacaa dhiig lagu bixiyo iyo dhaqaale lagu bixiyo dhiigii waa bixiyeen waana bixinayaan kuwa badana waa qoranaynaa way bixin doonaan yaa dhaqaalaha bixinaya dhaqaalaha ma waxaan ka sugaynaa shisheeye dhaqaalaha annaga hayna dhaqaalaha idinka haya jeebabkeena ugu wada jiraan ma ka soo bixinaa jeebabka walaalayaal dadka Muqdisho jooga iyo dadka Soomaaliya jooga iyo dadka qurbaha jooga haddaad doonaysaan dal sharaf leh oo aanan idinku dhibin eraboorada oo aanan magac xun Soomaaliyeed lahayn waxa weeye qof walba waa inuu qaybtiisa qaato haddii qof uu naftiisa huray oo dhiigiisa uu ku daadiyay waxaa loo baahan yahay idinku inaad ku kabtaan wixii dhaqaale ah haddaydan dhaqaale bixin waxay la tahay inaad kabtaan inaad ku jirtaan
xaaladda ah sharaf xumo iyo karaamo xumo inaad ku jirtaan waxaan idin leeyahay walaalayaal waa ognahay ciidanka Soomaaliyeed marxaladii soo maray waxaan soo joognay ciidanka Soomaaliyeed difaac kaliya ma ahayn sida rag odayaal halkan uga sheegeen ciidanka Soomaaliyeed inay qayb ka soo qaateen la dagaalanka ama taageerada gurmadka abaaraha inay gacan siin jireen waxay qayb ka soo qaateen waan ognahay inta ay ka gudbeen inay dalka difaacaan oo ay ka gudbeen gargaarka dadkooda iyo shacabkooda ay u gudbeen inaan u tagno dawladaha dariska nala ah Kenya Tanzania iyo Uganda oo hadda nala jooga halkan markay dagaalameen inay dhex galeen oo ay peacekeeping ka noqdeen oo ay kala celiyeen meeshaan higsanayno hadda waa meeshaas weyn meeshaan higsanayno ma aha shabaab iyo la dagaalankeeda shabaab waa ka adagnahay maxaa yeelay waxaad haysataan ciidan fiican oo aan sii kordhin doono iyo shacab wanaagsan waxaan aaminsanahay sidaan uga adkaanay shabaab magaaladan uga adkaanay inaan muddo kooban oo 2 sano aan shabaab uga adkaan karno oo dalkan ku soo celin karno nabadgelyo iyo sidoo ahaan jiray walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxa weeye hadal waxba ma taro Soomaaliya hore wuxuu tiri hadal yar iyo hawl badan waxa noo yaala hawl aad iyo aad u culus annagu haddaan nahay dawladii waxaan qaadanaynaa mas'uuliyaddii aad nagu soo doorateen oo ku soo doorateen xildhibaanada sharafta leh oo soo doortay intii hadda aan joognay bilihii yarka ahaa aan joognay waxaan idin sheegaynaa waxaan qabanay haddaad u aragtaan inaydan gacan nagu siin karin noo sheega iyo meeshaan wax ka sixi karno laakiin waxaan aaminsannahay 4 bilood iyo 5 bilood aan joognay inaan qabanay howlo aad iyo aad u baaxad weyn ay ugu horeyso ka hortagga abaaraha xasilinta caasimadda bixinta mushaharaadka aan joogto ka dhignay dardargelinta shaqadii wasaaradaha bilicda iyo maxaan ku raahdaa magaalada muqdisho oo aan bilaawno nadaafadii inaan bilaawnay la dagaalanka musuqmaasuqa inaan bilaawnay maxaan ku raahdaa diyaarinta iyo ansixinta hindisaha sharciyeedyada oo aan geenayno muddo dhow aan u geenayno baarlamaanka sidaad ogtihiin guushii ugu dambeysay waxay ahayd in dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xiran oo dhan 120 aan xabsiyada ka soo deynayno muddo yar gudaheeda waxaan qabanay shir weyne oo wada tashi ah oo la xiriira arrimaha dib u heshiisiinta walaalayaal hawshu fara kama qodna hawl aad iyo aad u culus yaa noo taala laakiin la'aantiin wax ma qaban karno waxaan u baahannahay shacabka Soomaaliyeed waxaan uga baahannahay in aad amniga nagala shaqeysaan mar walba waan nirahnaa waxaan u baahannahay inaad dhaqaalaha nagala shaqeysaan oo canshuuraha bixisaan haddaad labadaas samaysaan waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan la tartanno mar walba waan nirahnaa dawladaha kale oo runtii dadkeenu ay u qaxaan inaan la tartanno oo aan helno dad badan oo qaxooti oo noo yimaada bacdamaa dalkeenu yahay dal khayraad badan dadkeenu ay yihiin dad firfircoon oo markiiba wax barta iyo dad badan oo qurba joog oo wax soo baratay oo diyaar u ah inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maanta fursad ayaan haysanaa Soomaaliyeed waxaan idinka doonaynaa inaad taageertaan ciidankeena inaad dhaqaale ku bixisaan haba ugu yaraato hadday noqoto $1 gabadhii hadda meeshaan joogtay oo ka hadlaysay khayr Allah siiyo iyadoo caruur korsanaysa iyo $1 bixisa oo aan shaqaynay macnaheedu waxay tahay wixii aan rabno wax waa ku bixinaynaa gabadhaas waxay cadeysay inay tahay gabar wadaniyad ah idinkuna wadaniyiin ayaa tihiin qof walba oo na dhageysanaya hadda waxaan hubaa inuu aaminsan yahay inuu rabo inuu gacan siiyo ama taageero ciidamada qalabka sida oo maalin walba dhifayska noogu jira annagoo halkan fadhina oo ay kanaacada u cunaysaa oo xabadda ugu dhacaysaa ee u dhaawacmayaan iyagoo laga yaabo inaysan waxba cunin laga yaabo inkastoo aan ka shaqeynay waayahan dambe intii aan joognay xilka aan helnay inaan siina mushaaharo joogto ah waana ku wadaynaa mushaaharo
dambaystii waxaan rabaa inaan halkan uga yeero guddiga taakulaynta oo aan u magacaabay guddoomiye jenaraal maxamed jaamac qaalib jenaraal iyo ku-xigeenkiisa sheekh nuur baaruud burxan fadlan سمية السلام عليكم waxaan idiin sheegayaa labadan Soomaali waxaan u magacaabnay inay yihiin dad xurmad iyo sharaf badan ku leh ummadda Soomaaliyeed xilal badanna hore uga soo qabtay oo aan aaminayno waxaan intaasaan ku darayaa dhaqaalahaas la aruuriyay gacanteeda ku soo dhacaysa bacdama aan ahay taliyihii guud ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed dhaqaalahaas aad ku tabarucdaan ciidamadiina qalabka sida oo cadowga hor fadhiya dhaqaalahaas wuu gaari haddii ilaahay ay ummadda Soomaaliyeed ay gartaan oo jeebkooda si fiican wax uga soo bixiyaan waxaa laga yaabaa iska daa mushaaharo iyo caafimaadkooda inaan guryo ugu dhisnaba ciidanka maanta fursadaan haysanno mar walba ma imaanayso haddii shalay aan la idin raadinin oo aan la idin samaynin maxaan ku yidhahda xafladdan oo kale oo madaxdii qaranka iyo ciidamadii qalabka sida iyo shacabkii Soomaaliyeed aysan idin hor imaanin aysan idin hor keenin waxay u baahan yihiin waxa weeye maanta waa idin hor nimid waa idin hor taagannahay mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad aan wada leenahay naga wada dhexaysa mas-uuliyad cid gaar ah ee u leedahay ma jiraan dalkan wuxuu u baahan yahay in dalkan laba nabadeeyo dalkan wuxuu u baahan yahay in cadowga laga celiyo haddaadan dhiig huri karin oo aadan naftaada ku hurayn walaalayaalow dhaqaalaha nagu kaalmeeya haddii weli dalkaani uu kaaga jira lahjaclo dalkan waa dal wanaagsan waa dal meel fiican ku yaalla oo ilaahay wax walbana siiyey haddii aanan nabad la helin nolol la heli maayo furaha noloshu waa nabadda weyn annaguna waxaan ka shaqaynaynaa nabaddaan ka shaqaynaynaa nabaddana waxaa ugu horreeya ka shaqaynaya ciidamada qalabka sida haddii iyagu naftooda idin hureen idinkuna waxaa la rabaa jeebkiina inaad furtaan iyo qalbigiinaba ugu dambeyn waxaan rabaa kitaabkii aw odayaal waxaan sii kitaabkan oo hadiyad ah ammaanadan idiin dhiibay kitaabkaana ku dara waa kitaab jaamaca weeye dad islaana nahay ammaanada aad noo dhiibtaan waa ilaahay hortiisa inaan idin ilaalinayno aanan gaarsiinayno ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed habeen wanaagsan Soomaali ha noolaato Soomaali ilaahay ha nooleeyo Soomaali ha saacdo ciidamadeena iyo dalkeena Allah xoojiyo wax walba anaga nagu xiran yihiin Allah qulubteena soo duubo wa ma santiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh الله فرستو سلامته مدحوينها مسؤولينتا الله فرستو سلامته كدب سي ترتيب الله بحياه نظام سن هاي هلا فريستو وحي هلا فريستو مدحوينها وسلام يا سراكيش سلام قركم قادنا يا فضلا هلا فريستو